السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتنا قيمها بدن ee ku xidhan janalka dadweynaha ee YouTube maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa dad diinlaawayaal ah oo Ilaahay la xafaaltamay isla markaana Ilaahay ka muujiyay calaamo noloshoodiina ay meel xun ku dambeysay فرعون dalka Masar Fircawn wada garanaysan ninkii dadka ku yiri ana rabbukum al-a'la Fircawn waxa uu xaakim ka ahaa dalka Masar ahdigii nabiyullaahi Muusa calayhi salaam hadaba Fircawn ayaa wuxuu dadka ku qasbi jiray inay aaminaan inuu isagu ilaah u yahay gabagabadii noloshii Fircawn Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu nabiyullaahi Muusa u kala jeexay oo baneeyay isaga iyo kooxdiisa badda balse Fircawn ayaa markii uu badda soo galay si faal xun ugu dhintay badda dhexdeeda iyadoo la sheego inuu jasadkiisa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala badbaadiyay si ay dadku ugu cibro qaataan Tancredo Neves madaxweynihii Brazil waqtigii uu loolanka ugu jiray ololaha doorashooyinka dalka Brazil ayaa waxa uu yidhi haddii uu xisbigaagu helo 500,000 cod xataa Ilaahay igama hor istaagayo madaxweyne noqdo waa uu helay 500,000 cod balse guushiisii kadib dunida kuma sii raaxaysan waxa si kadis ugu soo booday xanuun qalliino badan ayuu maray si kasta waa la yiri balse waxba laga qaban waayay halkii buuna ku dhintay Kazuza waxa uu ahaa abwaan fanaan kuna caan ahaa khaniisnimo maalin maalmaha kamid ah ayaa isaga iyo kooxdiisu waxa ay heeso ku qaadiyeen meel xaflad ah isagoo xafladii jooga ayaa waxa uu la soo baxay sigaarkii markii uu cabay ayuu xagga sare hawada u afuufay kadibna yiri ilaahay intaasi adiga ayaan ku hibeeyay iska qaado wiilkii iyadoo da'diisu marayso 32 sano ayaa waxa uu geeriyooday cudurka AIDS-ka wuxuuna u dhintay qaab aad u foolxun ninkii sameeyay markabkii weynaa ee Titanic Thomas Andrews nin wariye ah ayaa weydiiyay awoodda iyo ammaanka markabkaasi waxa uu qaab lahjad adag ugu jawaabay xataa Ilaahay ma awoodi karo inuu gadoonsiiyo amba burburiyo markabkaasi waxaan filayaa inaad aad uga dhageysantihiin qisada markabkaasi waa mid caan ah waxa uu gadoomay galabnimo Arbaca ah 14 bishii Abriil 1912 isagoo u jeeda xagga New York dalka Mareykanka haddaba markabkaasi ayaa waxa saarnaa dad gaadhaya 2224 qof waxa uu markabkaasi ku dhacay buur ku taalay badda gudaheeda waxa ayna noqotay dhacdadaasi tii ugu cuslayd ee ka dhacda badda gudaheeda waqtigaasi iyadoo halkaasi ku nafwaayeen dad gaadhaya 1500 oo qof Marilyn Monroe iyadoo u diyaar garoobaysa xaflad ay qaban rabtay ayaa waxa uu yimid nin hawlwadeennada goobtaasi ka mid ah wuxuuna si kaftana ugu yiri Ilaahay ayaa ka soo diray kadibna waxay ugu jawaabtay Ilaahay waxba ugama baahni subxaanallahi al-khaaliq usbuucun kadib waxay ku geeriyootay gurigeeda Bon Scott waxa uu ahaa fanaan isagoo qaadaya hees ka mid ah heesihiisa 1969 isagoo heesaya ayaa waxa uu yiri hay joojinin Ilaahayow waxa aan doonayaa inaan galo meesha ugu hooseysa waxa aan doonayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan naarta u galo haddaba sanadku markay ahayd 1980 ayaa Bon waxa la helay isagoo meyd ah Christine Howard waxa ay ahayd wariyad ka soo jeeda dalka Jamaica waxa ay tiri Quraanka oo ka kooban hadalka Ilaahay waa kitaabka ugu xun abid 2006 ayaa waxa la arkay iyadoo ku dhex gubatay gaadhigeeda subxaanallahi al-khaaliq qisada caanka ah ee Kisra iyo Qaysar Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa labadoodaba waxa uu u qoray waraaq fariin ah oo u sheegaysa inay diinta Islaamka qaataan fariintii markii ay soo gaadhay ayaa labadiiba waxa ay diideen diinta Islaamka inay qaataan balse Qaysar fariinta Nabiga sallallahu alayhi wasallam waa uu maamuusay wax xadgudub ahna muungeysan mulkigiisina Ilaahay wuxuu ka dhigay mid aan burburin balse Kisra ayaa ku xadgudbay fariintii uu Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam uu soo diray waa uu jarjaray waraaqdii intaasi waxa uu ku darsaday waliba in uu aflagaadeeyo Nabiyullaahi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wax yar kadib Ilaahay wuu dilay wuuna baabiiyay guud ahaanba maamulkiisii qoomkii reer Thamud waa qoom uu Ilaahay u soo diray Nabi Saalix ah isla markaana fariintiisu ay ahayd inay caabudaan Ilaahay oo kaliya kana dheeraadaan caabudida ay caabudayaan sanamyada waa ay rumeeyeen ay soo dhaweeyeen Nabiyullaahi Saalix alayhi salaam balse wax yar kadib waa ay ku gacan saydeen waxayna gowraceen hashii Ilaahay ugu soo diray inay aayad amba waano ay u noqoto waxayna ugu hanjabeen Nabiyullaahi Saalix alayhi salaam in haddii uu wax tarayo uu keeno cadaab wuxuuna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala Nabiyullaahi Saalix u sheegay inuu 3 maalmood ku soo dejin doono cadaab una sheego dadkii isaga rumeeyay inay raacaan si ay uga badbaadaan ciqaabta xagga Alle ka soo socota intii rumaysay waa ay raaceen
intii kale ku gacan saydha ee beenisayna waa ay diideen inay raacaan. 3 maalmood kadib waxaa xagga sare ooga timtay qaylo iyo dhulkii oo la gariiray, taasi oo keentay inay guud ahaan reer Thamuud baaba'aan. Ilaahow waxaan ka magan galay cadhadaada. Ilaahayow waxaanu ka magan galnay inaan ku dhimano cadhadaada. Ilaahayow hana dilin adigoona naga raalli ahayn. gabagabadii iyo gunaanadkii baynu soo gaadhnay. aad baad ugu mahadsantiin daawashadiina. fadlan ha moogaanina in aad sii sheer garaysaan ood la wadaagtaan asxaabtiina idinku xidhan balaha bulshada sida Facebook, WhatsApp iyo wixii lamid ah. hana hilmaamina inaad subscribe saartaan channelka dadweynaha si aad ugu taxanaataan barnaamijyada ka baxa channelka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.